السلام عليكم دمانتي والد السلامي ميل كستو جوجتان حالي مانشستر يونايتد waxay ku soo badisay 5 gool aan kan labo hadii aan ogeyn Ten Hag in laga cadiyay kooxda hase ahaatee Van Nistelrooy kulankii ugu horeeyay oo loo dhiibay Manchester United waxa uu ku badiyay 2 gool aan ka shan xalay Manchester United FA Cup-ka Leicester City tay ku dhigtay waxay qof walba tiri Manchester United aan qaanay way soo laabatay laakiin hal kulan laguma qiimeyn karo koox hase ahaatee Casemiro kulanka hore hal gool ayuu dhaliyay ee ugu dambeeyay ee Manchester United laga soo badiyay hase ahaatee xalay 2 gool ayuu dhaliyay halka Bruno Fernandes 2 gool asna dhaliyay sidoo kale Garnacho uu gool dhaliyay kooxda Leicester City awood u yeelatay 2 gool inay iska soo celiso hase ahaatee sidaas ayay wareegga kaga hartay Manchester United sidaas ayay wareegga xiga ugu gudubtay oo 5 gool xalay madax furasho taageerayaasha Manchester United meel laga saro malahan maadaama Erik ten Hag laga caydiyay kulankii ugu horeeyayna ay badiyeen waxa la isleeyahay Manchester United way soo laabatay hase ahaatee kulan FA Cup laguma qiimeyn karo haddaba hambaliyo Manchester United dhammaantiin oo mahadsantiin muuqaalkan hadduu ku soo gaaray like iyo follow hanala dhaafin oo nagu tur imaamada